madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo maanta si wada jir ah saxaafadda kula hadlay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe waxa uu sheegay inuu iscasilay iyadoo madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu sheegay inay dhacday xukuumadda Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo marka hore saxaafadda la hadlay ayaa ku dhawaaqay iscasilaadiisa isagoo ka warbixiyay sababaha uu isku casilay Maxamed Nuur aan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya anigoo waqtigii doortay waqtigii xasan anigoo markaan arkay buuq iyo waxyaalo badan oo isdhexmar ah waxaan go'aansaday in aan maaragtay ka hormariyo dalkayda dalka ummadda Soomaaliyeed dalkan dhibaatada badan ka taagan tahay dagaalada halkeeyeen shacabigii qaranka ku jiro wax buuq ah aniga ugu saabsan hal maalin dib u dhaca inuu ku yimaado waxay kala haboonatay inaan ummadda Soomaaliyeed daraaddeed u tagayso waxaan rajaynayaa baarlamaanka Soomaaliyeed aniga intaan ku tagayaan waxaan rajaynayaa inuu noqdo baarlamaan madaysan oo u shaqeeyo danaha ummadda Soomaaliyeed danaha qaranka wax Allah uu dabaalada ummadda u keenay karo ka dagaaliyo inuu noqdo taasana aniga inaan cadeeyo aad iyo aad kadib markii Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe uu ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka gudoomiyaha baarlamaanka dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa waxa saxaafadda la hadlay madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa uu sheegay in dhawaan uu soo magacaabi doono ra'iisul wasaare isagoo Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ka codsaday inuu ka mid noqdo xukuumadda cusub أنا فخذ من أمانة الجميع سبب حكي فوق أرضك وأنا أسوي سيدا أسألتي مرحلة أن تكون مرحلة تاريخية مغلبة عن واجهة وحن وقتها لنا القاعدة ضد قوستي نصيب محمد الصومالي البعضية مركا ما حقوا نمرنا إن أنكم مشهور مقيلات بحدنا سلوك الحل وعلى سبيل بوق فرابا منتدى سوس غيد أن نجمع الوحى وإن السؤال صوم العارض سيوصل بالحكومة تيالي بلغ بسحابة هذا التي ما مدونات في سياسة بدايسة تذكر كان بدايسة لغاتها سيدة كلام بدونها الرغبة عن كأسنا مدانا من قضية الرئاسة الشرعية ويعني ما تنازلها إنه أفضلهم من حكومات الرسول وكم من نظام iscasilaaddan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa waxay ka dambeysay kadib markii uu ku fashilmay shalay inuu shir gudoomiyo kalfadhigii baarlamaanka dawladda Soomaaliya kadib markii xildhibaano fara badan oo ku sugnaa kulanka qaylo ay kala soo horjeesteen gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo maanta iscasilay شدار حاجي شدار تلفزيون عالمي ETN مقدشو